daafac bidix ee Chelsea Cucurella ayaa yiri waa inaan wax walba sameeynaa si aan u joojino Lamine Yamal iyo Barcelona. Difaaca Chelsea Marco Cucurella ayaa sheegay in kooxda ay u baahan tahay in dadaal kasta u gasho si ay u joojin lahayd Lamine Yamal iyo Barcelona. Kahor kulanka Champions League ee ka dhacaya Stamford Bridge, Cucurella oo shirka jaraa'id ee kooxda ka hadlay ayaa yiri waa inaan sameeynaa dadaalkeena ugu fiican si aan u joojino Lamine Yamal iyo Barca. Aad ayay u adag tahay inaad ka hortagto ciyaartoy sidan oo kale ah, sababtoo ah waa xirfadlayaal gaar ah oo leh tayo badan. Wuxuu sii raaciyay arintu ma aha Lamine Yamal iyo Cucurella oo kaliya, waa ciyaar weyn, anaguna waa inaan ciyaar weyn soo bandhignaa. Inkasta oo Cucurella badanaa uga ciyaaro Chelsea booska dhexe ee daahsoon, haddana kulankan waxaa la filayaa inuu si buuxda ugu laabto booskiisa daafac bidix si uu ula tacaalo Lamine Yamal oo hadda loo arko garabka midig ee ugu fiican adduunka. Barcelona iyo Chelsea ayaa ku kulmaya Stamford Bridge kulan Champions League ah oo heerkiisu sareeyo, iyadoo guuleystaha uu qaadan doono 3 dhibcood ee kulanka. dhinaca kale, Vinicius Junior oo diiday inuu Real Madrid heshiis cusub u saxiixo. Saxafiga lagu magacaabo Mario Cortegana oo u shaqeeya Atletico ayaa sheegay in xiriirka u dhaxeeya Vinicius Junior iyo tababaraha Real Madrid Xabi Alonso uu weli aad u xun yahay, isla markaana uu gaaray heer aan waxba laga qaban karin. Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in Vinicius uu kulamo gaar ah la yeeshay madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez bishii la soo dhaafay, wuxuuna ku wargeliyay inuusan dib u cusboonaysiin doonin qandaraaskiisa hadda socda. Sidoo kale wuxuu u sheegay inuusan ku habboonayn mustaqbalkiisa inuu sii joogo Madrid inta Alonso uu tababaray ka yahay kooxda. Haddii warkan uu sax noqdo, Real Madrid waxay haysataa hal xagaa oo kaliya, waana kan hadda socda si ay u iibiso Vinicius. haddii kale waxay halis ugu jiraan inay si bilaash ku waayaan July 2027 markaas uu qandaraaskiisu dhacayo. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ay laabin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.